أولاً dhammaantiin ba aad baan idin salaamay. Muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa qaabka aad u samayn lahayd user authentication ama admin formka marka la joogo school management system. Marka waxaan isku dayi doonaa kan mid la mid ah inaynu aragno qaabka loo sameynayo hadduu alla idin. Halkan waxaa ii soo galay admin formkii ayaan ii soo galay. San dashboardka u tago waxaan gelin doonaa admin oo username-kii ah passwordkana 1234 baan ka dhigi. Waxaan leeyahay login. Haddii uu saxan yahayna sax buu ii soo saari. Haddii kalena khalad buu ii soo saari. Marka hadda waa khaldan yahay. Passwordkan soo khalday passwordkan saxaya 123 ayaan leeyahay. Deetana login baan siinaya. Sidaa awgeed wuxuu ii soo saaraya dashboard. Marka kaasi rabnaa inaynu derisno hadduu alla idin. Kaasi aynu u derisno ama u sameyno waxaan tegi doonaa file. Waxaan kasii dooran doonaa new. Deetana new project ayaad kasii dooran doontaa. Intaa markaan ka nimaadno waxaynu dooran doonaa .NET framework oo Windows formka ayaad ku dhufanaysaa. Then next ayaad leedahay. Halkan namespace ayaad magac ula bixi doontaa. Waxaan leeyahay school management system. Waayay deetana waxaan siinayaa create ayaan siinayaa. Waayay already kan horu iigu jiray 2 baan siinayaa marka. Deetana waxaan ku dhufanayaa halkay ku qoran tahay create. Waayay intaa markuu ii soo saaro wuxuu ii soo saaraya formkan defaultiga ah formka. Resizing baan ku sameynayaa waa soo yareynaya maybe intaasaan u diisanayaa. Waxaan tegi doonaa toolboxka. Waxaan soo search gareyn doonaa panel. Kan ayaan soo qaadi drop ayaan siin doonaa. Halkaas ayaan ku drag siinayaa. Waayay si aan qaybta topka aan ugu saleeyo. Waxaan tegi doonaa qaybtan ayaad ka baari doontaa qaybta. Ama qaybta property-ga tegi doontaa deetana qaybta doc ay ku qoran tahay baad ka soo ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid waxaad kasii dooran doontaa qaybta ugu sareysa ay ku qoran tahay top. Deetana xagga sare ayuu ku oolayaa xoogaa baan soo yareyn. Waa intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa colorka inaan kasoo bedelo colorka back color ama background color ayaa ii soo baxaya qaybta control-sha ayaan iska tirtiri. Qaybta control-sha ayaan ka tirtiray waxaan ku qoran doonaa deep pink ayaan leeyahay marka waa isku xidhi doonaa enter baan siin doonaa. Okay waayay waxaan leeyahay deep pink. Waayay enter markaan siiyay colorkii waa kaa qaatay. Text boxkii baa dib ugu noqon doonaa. Deetana halkaa waxaan ka search gareyn doonaa labelkii waan soo qaadi. Halkaas ayaan drag aan ku siin doonaa. Halkaas ayaan drag ku siin halkaa ayaan drop ku siin doonaa. Waa intaa markaan ka imaado hoos baan u socon doonaa. Halkaa ay ku qoran tahay text ayaad magaca ka soo bedeli doontaa. Magaca waxaan ula bixi doonaa admin. Login ayaan ula bixi doonaa ama admin form labadaba waad u bixin kartaa. Intaa markaan ka nimaadno qaybta fontiga ayaan tegi doonaa. Fontiga ayaan click siinayaa 3 dhibcood ayaad soo furi doontaa. Dialog ayuu ku soo saari doonaa deetana bold baan ka dhigan. Halkan waxaan ka dooran doonaa fartaas ayaad ka dooran doontaa balsan. Deetana waxaan ka dhigi doonaa regular. Waxaan ka dooran doonaa 24. Deetana okay ayaan siin doonaa. Fontiga ayaan soo bedeli doonaa. Waxaan ka dhigi doonaa fartu waa black. Sidaa awgeed waxaan ka dhigi doonaa white. Qaybtaasaan soo furi. Waxaan tegi doonaa webka. Deetana white ayaad ka dooran doontaa. Saasuu markaa u qaadan doonaa. Intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa toolskii waan dib ugu soo noqon. Halkan sidoo kale waxaan u baahanahay panel. Halkaasaan label ka dhigaya. Haddana waxaan u baahanahay picture box. Isagana waad soo qaadi. Drop ayaad ku siin doontaa. Xoogaa waan size-kiisa soo badan. Qaybtaasaan tegi doonaa marka. Waayay intaa markaan tago aan sawir u soo gashto waxaan tegi doonaa qaybta ama ishaas ayaad ku dhufan doontaa. Qaybta markaad ku dhufatid waxaad kasii dooran doontaa choose image. Deetana import ayaad leedahay. Deetana sawirkii ayaad soo ogan doontaa oo halkan ka dooran doontaa open baad leedahay. Okay ayaad siinaysaa. Sawirkii waa oversizing weeyaan. Sidaa awgeed qaybtii baad dib ugu noqonaysaa. Halkan normalka waxaad ka dhigi doontaa zoom. Sidaa awgeed cabirkiisaas ugu fadhiisanayaa. Intaa markaan nimaadno qaybtan labelka ayaan u iman doonaa.
waxaan rabnaa inaynu qaybtan xoogaa magaca waa ka soo bedeli waxaan u soo bixin doonaa username fontigana waa ka soo bedeli qaybta fontigan tegi fontigana waxaan leeyahay xoogaa protein baan ka dhigi doonaa farta intaan markaan ka dhigo xagganaan tegi weeye control plus c control plus v isagan copy garaystay qaybtana waxaan ula bixi doonaa password ayaad u bixin doontaa waayahay intaa markaan ka nimaadno waxaan soo qaadan doonaa text boxkii halkaasaad ka searchin garayn doontaa isagana drag ayaad leedahay qaybtaasaad dhigan doontaa xoogaa waa soo weynaysiin maybe intaysan u dayn waxaan leeyahay control plus c control plus v isagana intaa markaan ka imaado qaybtan isagaad ku dhufanaysaa waxaan u samayn doonaa identifier ayaan u samayn doonaa ama magacaan ku aqoonsano si compilerku si fudud u akhriyi karo qaybta namekaad tegi doontaa halkaa maadaama uu text box yahay txt ayaad ula bixi doontaa deetana username ayaad leedahay kiiskan ku qoraynayna waa camel keys then waxaan ku dhufan doonaa qaybtan labaadna txt waxaan leeyahay password intaa markaan ka imaado waxaan doonan doonaa qaybtii buttonka toolboxkii baan qori waan tegi button ayaan ka search garay waa soo jiidi drop ayaan siinayaa xoogaa waa soo weynaysiin intaa markaan ka imaado waxaan u imanayaa qaybtan magaca waxaan ula bixi doonaa btn login ayaan siin doonaa qaybta namekana qaybta maxaa leeyahay textkana waxaan ula soo bixi oo magacii soo muuqanaya ha noqdo login intaas waxaa leenahay farta xoogaa fontiiskii soo roonaysi fontii baad tegeysaa saddexdaa dhibcood baad kasii dooran waxaad leedahay markaa isagana 14 meelaha maybe 14 baan ka dhigayaa intaas saasay nagu samaysan tahay hadda intaa markaynu saa u sameyna waxaan leenahay markaa qaabkaasay nagu salaysan yahay si aan u soo fnt aan ugu sameeyo buttonkan double click ayaan siinayaa double click markaan siiyo qaybtan sare waxaan ka soo samaysanayaa classka waxaan leeyahay using system deetana waxaan leeyahay data waxaan leenahay sql client intaas ayaa soo sameynaysaa intaa markaad soo samaysay simcolumti baad ku xidhaysaa classkaas hadda waa kuu samaysan yahay intaa markaan sameyno waxaan samaysan doonaa object loo yaqaano sql connection kaasoo inoo qabanaya inuu connection inoogu sameeyo sqlka ama serverka inoogu xidhiidhsiiyo waayahay qaybtaa waxaan leeyahay objectiga waxaan ula bixi doonaa magacaan usoo gaabsan doonaa waa con deetana waxaan leeyahay waxay ka mid tahay waa new sql connection deetana qaybta dhexdiisaan tegi doonaa waxaan dhigi doonaa at deetana waxaan furi doonaa double codekaasoo furi doona halkaasaan connectionkii gashanaya connectionka intaan gashan waa inaan markaa soo sameeya sqlkii ayaad tegi doontaa ama serverkii ayaad soo furan doontaa waayahay intaa marka hore waa copy garaysan control c baad leedahay connect ayaad siinaysaa marka connect markaan siiyo waxaan soo samaysanayaa database deetana waxaan leeyahay databasekaad ku dhufanaysaa right click baad leedahay new database ayaad ogaanaysaa marka oo dooranaysaa qaybtan databaseka magaciisa ayaad sheegi doontaa waxaan leeyahay databaseka waxaa loo yaqaanaa school management baa loo yaqaanaa school management sidaasaan u deysan doonaa weliba waxaan raacin doonaa systemkan waxaan leeyahay two ka dhig okay waxaan siin doonaa marka okay baad siin doontaa databaseka saasuu inagu samaysan haddaan soo refresh gareeyo database management system school management system two ayaa inoo samaysan isagaad waxaa weeye soo furaysaa waxaan usii samaysan doonaa tableki ayaad waxaa leedahay new table ayaad kasii dooran doontaa qaybta markaad new table kasii dooratid tableka waxaan u samayn doonaa column 3 column baan markaa isticmaali doonaa ka koobaad waa kii soo aqriyayey isagana intii baan ka dhigi doonaa oo id-ga weeyaan labaadna waxaan ula bixi doonaa usernamekana waxaan ku kaydin doonaa varchar oo data typekiisu varchar haynoo noqdo waayahay passwordkana waxaan ka dhigi doonaa isagana varchar ayaad siin doontaa intaa marka ka nimaado kan constituentskin ku xidhaynayo waxaan set primary key constituentka primary key ayaan ku xidhnay
xaggan aad tegi doontaa markaa waxaad samayn doontaa identify ayaan samayn doonaa identifygaasna waxaan ka dhigi doonaa yes ayaad dooranaysaa qaybtaas ayaad yes ka dooran doontaa waa intaa markaynu samayno waxaad tegi doontaa file waxaad soo save garaysan doontaa tableka adigoo tableka magac ula bixi doona waxaan leeyahay logi deetana waxaan siin doonaa okay ayaad siin doontaa intaas hadda waxaa inoo samaysan waxa weeyaan waa tablekii iyo columnskii marka saddexdaa column buu ka kooban yahay intaa markay ka nimaadno waxaan leeyahay qaybta connect ayaad ku dhufan doontaa database engine ayaad dooran doontaa intaas ayaad leedahay control plus c deetana connect ayaad leedahay xagganaad tegi doontaa waxaad dooran doontaa markaa server explore hadda qaybtana ku xidhiidhsan window near qaybtan waa iska saari delete baan leeyahay waxaan leeyahay markaa halkaas iconka ayaad ku dhufanaysaa add oo connected database haddii aanay qaybtaasi aanay intani kuu soo bixin waxay ka dhigan tahay kuguma jiro packagekaasi qaybtaasi kuguma jirto marka waa soo xawlan doontaa si fudud qoraalkii aynu soo koobi garaysanay ayaan halkaa ku baasti garaysan doonaa qaybta markaan ku baasti garaysto haddii aan isiraahdo soo select garay database-kii magacan la soo baxay wuu iga diiday marka waxaa la rabaa qaybtan inaad optional ka soo dhigtid qaybtan ayaad ku dhufan doontaa optional ayaad dooran doontaa marka policy deetana qaybtanaad markaa aad ka dooran doontaa magacaad la soo baxday magacaad la soo baxay waa kaa ugu hooseeya kaa ka sarreeya deetana waxaan siin doonaa okay waxay ka dhigan tahay hadda way iswaafaqsan yihiin laakiin umayna yeedhin connectionkii si aan connectionkii ugu yeedhno qaybtaasaan ku dhufanayaa qaybtan markaan ku dhufo property-gii baan tegayahay halkaa waxaa ii soo baxaya qayb loo yaqaano connection stream marka qaybtaas ayaan control plus a baan siinayaa control plus c baan siinayaa qaybta dhexda ayaan halaya control plus v waxaan ku baasti garaysanaya sidaa awgeed waxaa ii samaysan connectionkii baa hadda ii samaysan halkaasaan markaa ka furi doonaa conti baan furi waxaan leeyahay halkaa ka bilow waxaan leeyahay open way halkaas ayaan connectionkii aan ka bilaabay intaa markaynu soo samaynay waxaynu u yeeri doonaa markaa variable si aan u samaysano waxaynu sheegi doonaa data typeka variableka lagu kaydin doono waxaan leenahay data typeka waa stream markaynu ano variableka koobaad waxaan leenahay waxaad nooga dhigtaa username waxay ka dhigan tahay markaa aynu ka soo muujin doonaa txt oo noqonaya username dot text marka sidaa awgeed waxaan leenahay waxaan samaysanay variable loo yaqaano usernamekana waxaan ku kaydsanay xogtu inay ka soo muuqato waxa loo yaqaano outputkii oo noqonaya text boxkii ayuu nooga soo saari doonaa waana propertyna waanu samaynay propertygiis waa text intaa marka ka nimaadno haddana waxaan leenahay stream markaan siino kalabana samaysan doonaa password markaan samaysto passwordkana waxaan leeyahay isagana waxa weeyaan waxaan ku kaydsan doonaa propertyga ayaan ku darsan doonaa text intaa markaan ka imaado qaybtaas inter ayaan siin doonaa halkaa waxaan ka bilaabi doonaa wax loo yaqaano objectiyadii objectiga koowaad ee rabnaa inaynu qoranay waa in laynoo tilmaamo oo commandkii ugu horreeyay aan samayno aynu tilmaamsano meeshii xogtu taallo waxaan leenahay markaa waxaan dooran doonaa sql command markaynu nahno waxaan leenahay objectiga magaciisa waxaa loo yaqaanaa cmd usoo gaabso cmd meel walba aad ku aragtidna waxay ka dhigan tahay waa new sql command intaa marka ka nimaadno waxaan leenahay bracket baynu soo furan semicolon waxaan soo furi doonaa bracket baan soo furi bracket markaan soo furo waxaan xusi doonaa oo ugu dambaysin doonaa semicolontii dhexdeeda ayaan double quoteski ayaan tegi doonaa double quoteska markaan dhexdeeda tago waxaan dooran doonaa aan leeyahay select waxaad ii soo select karaysaa username iyo password kuwaasoo yaala login formkii waxaan leeyahay login tablekii loo yaqaanay login waxay ka yaalin username deetana waxaan soo furi doonaa equal baan leeyahay usernameka kula mid noqon ood xogtaa marka aad soo heshid yacni meesha aan la rabo in laga soo saaro kale
waxaan leenahay usernamekaas xogta taalla waxaan ka soo saari doonaa waxaan qoran doonaa single code markaan qorannana waxaan qori doonaa double code qaybtaasna waxaan leeyahay concatenation waxaan leeyahay qaybta add ayaan siin doonaa ama addition waxaad iga soo saartaa markaa txt username propertygina waa xusi doonaa inuu yahay .text intaa markaan ka imaado waxaan u sii xusi doonaa aan leeyahay qaybta waxaan ku sii dari doonaa aan siin doonaa inaan laygu sii daro okay waxaan leeyahay double quote ayaad halkaa ka furi doontaa weeyahay single quote ayaan furi deetana double quote ayaan halkaa ku xusi halkaa waxaan ku qoran doonaa markaa aan xusi doonaa aan passwordkina isagana waa soo xusi waxaan leeyahay passwordkuna ha noqdo equal baan leeyahay isagana waxaan siin doonaa single quotekii qaybtana tegi doonaa qaybta markaan tagona waxaan leeyahay isagana add ayaan siin doonaa okay isagana add ayaan leeyahay deetana txt password baad isagana siin doontaa txt password markaad siisid qaybtaas saasay nugu dhan tahay intaa markaynu soo sameynay waxaan leenahay passwordka waxaan ka dhigi doonaa propertygii baan ku dari doonaa .text ayaan siin doonaa .text markaan siiyo qaybtaas waxaan leenahay waxaad igu sii dartaa double quote baan soo furi quotena waan xidhi halkaasna waxaan leeyahay waxaad iga samaysaa comment dhigi doonaa xogta wuxuu ka soo akhrisan doonaa connection sidaa awgeed qaabkaasay nagu samaysan tahay connectionku xogta hadhow ka soo akhrisan doono waayahay hadda markaa wax errora inooma soo saarin laakiin haddii error jiro adiga qaybtaasuu kuu soo saari doonaa saasuu muuqan doonaa labadaas halkaasuu error ku jiro hadda labadaasaynu kala horeysiin doonaa waayahay qaybtana waa iska saari saasaynu kala horeysiin qaybtanna waxaynu qaladnay isagana waxaynu horeysiin doonaa calaamadan single quote-ka double quote-kana waynu dambaysiin doonaa marka hadda saasuu marka uu nugu saxan yahay qaybta koobaad oo connectionka qaybtan tegi doonaa waxaan siin doonaa inter baan siin doonaa intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa qaybta loo yaqaano data adapter waaye sql data adapter waaye sql data adapterku wuxuu noo qaban doonaa waa bridge between data set and data server waa datada kaydsan iyo datada la rabo in la soo bandhigo waa objectiga inoo soo saarayay marka objectiga waxaynu usoo gaabsan doonaa de ayaan usoo gaabsan doonaa waxaan usoo gaabsan doonaa da markaan usoo gaabsano waxaan leenahay da okay da ayaan usoo gaabsan doonaa waxay ka dhigan tahay waa new data adapter weeya xogtana wuxuu ka soo akhrisan doonaa cmd oo commandka ah intaa markaan ka nimaadno waxaan u iman doonaa qaybtan loo yaqaano qaybta labaad loo yaqaano data tablena waa kii noo saamaxayay inuu xogtii uu nagu kala qaybiyo row iyo column isagana waxaanu soo gaabsan doonaa dt markaanu soo gaabsano inter baan leenahay halkaasna waxaan ka samaysan doonaa waayahay data adapterka ayaad ka samaysan doonaa .fill ayaad leedahay intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay halkaan waxaan ka samaysan doonaa waxa weeyaan conditionkii waxaan leenahay haddii datada la soo helo ay datadaasi sax noqoto waxaad soo saartaa marka waxayna soo saari doonaa message boxkaas .show waxay nooga soo muuqdo bracket baan soo furi double quote baan halkan xusi waxaan leeyahay kasoo muuji waayahay login tusaale successfully intaa ka soo saar semicolontina ugu dambeysii xaggan kale waxaan leenahay intaa haddii la waayo ls ku sii dar haddii la soo waayo xogtaas oo ama xog khaldan la geliyo iyadana waxaad soo saartaa message box .show baan leeyahay
did show markaan idhaahdo bracketkii baan soo furay double quotekii baan hosi waxaan leeyahay invalid username or password way intaasaan isagana xusi simcolumti baan kusoo xidhay way haddaba waxaan rabnaa daatadii lasoo akhriyayay inaynu SQL-ka soo samayno waxaan tegi doonaa markaa table baan tegi doonaa tablekaas okay right click ayaad leedahay deetana waxaad leedahay edit wax loo yaqaano tab rowgaas ayaad ku dhufan doontaa halkaa waxaan samaysan doonaa waa dhaafi doonaa halkaas waxaan u bixi doonaa admin kana waxaan leeyahay 1 2 3 deetana intaasaan soo samaysanaya waxaan tegayaa qaybta waxaan leeyahay save hadda daatadaas usernameka waxaan gelin doonaa admin passwordkana waxaan gelin doonaa 1 2 3 haddii aynu hello wuxuu inuu inoo soo saaraa successfully haddii kalena waa inuu inoo soo saaraa waxa weeye invalid aan soo dibaagaraya marka waayahay marka aan soo dibaagaraya qaybta waxaan gelin doonaa admin qaybtana waxaan gelin doonaa 1 2 3 deetana aan idhaahdo login marka login successfully wey already qaybtaad rabta ayaad hadha u diiban doontaa hadda halkaa wuu soo helay haddii aynu rabno inay lambarkan wax ku sii darno aynaan 1 2 3 4 na waa inuu soo saaraa invalid password and username okay qaybta saasay sax inugu tahay waxaan u samaysanaynaa passwordka waaynu hiding baan ka dhigi karnaa waxaad tegi doontaa markaa waxaad tegi doontaa qaybtana tegi doontaa qaybtan xaggan hoose ayaad waxaad ka eegin doontaa character waaye characterkan waxaan ka dhigi doonaa isaga okay qaybtaa waxaad ka baari doontaa password character qaybtaasee markaa waxaan ka dhigi doonaa calaamadda loo yaqaano multiplicationka ayaad qaybta halkaa dhigi doontaa already haddii hadda wax soo qorno in xogta aan soo qornay waxay noqon doontaa mid xaydhina oo privacy ahaan passwordku saas waa inuu waxa weeye bulletiska u soo saaraa oo dhibcaha u soo saaraa si aan loo aqoonsan passwordka marka insha allah intaa soo sameeya asalaamu calaykum